wararka ugu dambeeya ee marka ay noqoto dagaalada adduunka ee xilligan inagu aynu joogno xilligan waqtigan inagu aynu nool lahay waxaa la odhan karaa waa xilligii ugu dhowaa ee dagaalka saddexaad ee adduunka inuu dhaco ahay taas arrin haddeerta lagu kala beirsan yahay ma ahan wadamo badan oo reer galbeedana waxay marmar ka dambaysa ay dadkooda siinayaan talooyin dhinaca maskaxeedka iyo diyaarin jireed iyo weliba mid markaasi ay dadka uga fakarinayaan haddii dagaalada adduunka ay dhacaan waxyaalaha dhici kara dagaalada adduunka ee marakan dhacaya waxay saameyn aad xoogan ku yeelan doonaan nolosha dadka oo dhan oo ay taaban doonaan waxaana la tilmaamay inay ka darnaa doonaan dagaaladii kale ee dhacay sanadihii kun iyo sagaalkii boqol iyo ilaa iyo kun iyo sagaalkii boqol iyo shan iyo afartankii dhacay dagaalkii koobaad iyo kii labaad sababtoo ah waxaa leeyahay waagaasi adduunku maanta siduu isugu xidhan yahay isuguma xidhna taasina waxay keentay in wadamada qaarkood ay diyaariyaan hanaan ee wadamadooda ay ugu sheegaan ama bulshadooda aan dhaho ay wadamada ugu sheegaan inay isku diyaariyaan dagaal aada u weyn waxaana ka mid ah wadamada reer yurub wadamadaasi aadka u diyaar garoobaya iyo kuwa marmar ka dambaysa iyo aadka u xoogan ee markaasi ay sameynaya dagaalka dhinaca dhaqaalaha ayaa saameyn aad u xoogan ku yeelan doona dagaalka dhinaca socdaalka waayo ilaa hadeerto si kastoo xaaladdu u xun tahay wadamada adduunka oo dhan socdaalkoodu wuu isku furan yahay ruushka iyo maraykanka diyaaradii way wada wadeeyaan shiinaha iyo maraykanka diyaarado boqolaal diyaaradood duulimaadyo ah ayaa maalin walba u kala duula wadamada yurub iyo rushia sidoo kale cilaaqaadkooda dhinaca duulimaadada waa mid joogto ah waxbana iskama bedelin inkastoo laga yaabo inuusan boqolkiiba boqol sidii hore ahayn laakiinse wax weyn oo hadda la dareemi karo oo dhinaca isku socodka ah ma aysan imaanin dhinaca waxyaalaha necessity-ga ee cuntooyinka waxyaalaha muhiimka ah waxyaalaha qamadidu ay ka mid ka tahay waxyaalaha agabka beeraha abuurka beeraha waxyaalahaas weli waa la isdhaafsadaa inahaasoo dhan waxay kor u qaadeen in caalamku hadeerto marka uu dagaal galo uu noqon doono in dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee hadeerto maraykanku sii faarfaaray uu isku bedeli doono mid aada u baaxad weyn oo keena ugu dambeyn dhibaabo dhab ah sidaa daraadeed wadamada qaarkood ilaa hadda waxay ka hadlayaan in shirkadaha wadamada kuwa cuntooyinka sameeya kuwa birta sameeya kuwa diyaaradaha inay isku diyaariyaan go-doon weyn oo ay geli doonaan go-doonkaasna wuxuu noqon doonaa mid aada u xoogan oo laga baqayo inuu saameynta ban oo seeda ku yeesho haddaba gaashaanbuurta nato waxaa lagu eedeynaya iyadu inay dagaalka hurisay dowladda ruushku dhinaceeda ama saydhka ruushka markaynu eegno wararka ugu dambeeya madaxweynaha dalka rushia wuxuu sheegay in gaashaanbuurta nato ay tahay cidda iyadu doonaysa in quwaduhu isku dhacaan isla markaana waxa ay sheegeen inay ka dhex arkeen ciidamada ruushka oo ay doonayeen ciidanka ruushka lagu jabiyo afaafka dagaalka sidaa daraadeed ruushku farta ayuu ka ruuxay madaxweynihiisu wuxuuna sheegay inaysan waddankiisu asmici doonin in ciidankooda afaafka dagaalka ay ku jabaan sidaa daraadeedna ay wax walba u hurayaan in aysan noqonin ta ay doonayaan dalalka reer galbeedku laakiin gaashaanbuurta nato madaxooda guud oo leeda mark rutte waa ra-iisul wasaarihii hore ee wadankaasi netherland wuxuu sheegay kuna celceliyey dhowr jeer dhowr arrimood oo ay ka mid ka tahay in madaxweynaha dalka rushia aysan ka filaynin waxaan xumaan ahayn waxayna sheegeen hadday yihiin gaashaanbuurta nato inay ku khasban yihiin sii wadista qorshahooda diyaargarow ee dhinaca dagaalka wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta nato maanta ayuu shirkooda kusoo gabagaboobay xalay ayuu shirkooda ku gabagaboobay magaalada brussels ee xarunta ay ka dhigteen dalka belgium waa magaalada caasimada u ah nato iyo sidoo kale waxay caasimad u tahay midooda yurub labadaba hadaladii halkaas ka soo baxay waxay ahayn kuwo aad iyo aad u kaknaa waxayna ahayn kuwo muujinaya caadifadu meesha ay marayso waxayna sheegeen in gaashaanbuurta nato ay sii wado isku tashiga diyaargarowga dagaal iyo in ay ku tala gasho wax kastoo xumaana dee worst scenarios oo ay jiraan waxay ugu yeedheen hilaado aad iyo aad waxyaalo xunxun inay dhici karaan waxaana gaashaanbuurta nato mar kale ay ka wada hadashay in iyadoo loo gogol xaarayo soo dhoweynta fagaarayaasha caalamka uu imaan doono madaxweynaha maraykanka ee ka kan donald trump oo isagoo aaminsan in dalka maraykanka keligii uusan yeeli doonin qorshahan digdig tale ee ku tilmaamay dhowr jeerna uu yidhi dalalkan reer galbeedka ayaa sameynaya isagoo leh wadamada reer galbeedka waxay doonayaan in dalka maraykanka dhaqaalihiisa hubkiisa siyaasadiisa iyo saameyntiisa keliya lagu xisaabtamo oo lagu jaangooyo difaacyada wadamada waxaa la sheegaya in arrintaasi ay iyaduna dhankeeda ay ka soo socoto oo ay khatarteeda leh loona diyaar garoobaya wasiirada arrimaha dibadda waxay sheegeen weli inay u arkaan dowladaha shiinaha iyo dalweynahan loo yaqaano ayay yidhahdeen ama maamulkan la yidhaahdo ruushka inay maraykanka keliya maaha gaashaanbuurta nato isku duuban ay u arkaan halista aadka weyn u jirta dagaalada markaa ukraine ayaa doorka aadka ugu weyn arrintan ka ciyaaraya dagaalada ukraine marka si kale loo dhifayn gareeyo ee loo sheego madaxweynaha wadankaasi ukraine isagu hadeerto wuxuu wafdi u diray dalka maraykanka wafdigaasi kuma socdaan xukuumadda maanta talada haysa iyo madaxweynaha xafiiska jooga ee maalmaha kooban ay uga harsan yihiin laakiinse wuxuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo qadiyadan madaxweynaha la doortay dalka maraykanka waxaa la sheegay inuu garhka qabtay oo uu tuugay laakiinse waxaa la sheegay Trump in uu u sheegay ergada tagtay Palm Beach hal fariin oo lagu tilmaamay inay wadno kurkur ku noqoto wuxuu ku yidhi haddii aad doonaysaan wanaag inaan
iskula tacaamulo oo dowladda maraykanka ee anigu aan hogaaminayo xukuumadayda ay noqoto ayuu yidhi mid idii jixinjixda waa inaad haddeerto sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan aad u dhammaystirtaan ayuu yidhi heshiisyada iskana diyaargaroodaan oo aad nabad qaadataan. Trump wuxuu sheegay inuu aaminsanaa in kooxdii wadankan taladiisa haysay oo dabcan ula joogo xisbiga dimuqraatiga ay doonayeen inay adduunka ay geliyaan dagaalo waaweyn oo dagaaladii adduunka kii saddexaad ay ridaan, laakiin isaga wuxuu sheegayay inuu yahay rasuul loo soo diray, wuxuu hadalka u dhigay aniga waxaan ahay buu yidhi messenger lasoo diray oo gebi ahaanba sida wararka ay sheegayaan xaqiiqooyinka oo nabadda ah wasoo hadalka u dhigay wuuna ku tooqay arrintaas. Wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay qof nabadda loo soo diray oo dadka maraykanku ay soo direen oo dabcan wuxuu leeyahay dadka maraykanku waxay igu codeeyeen isagu malaha de ilaah bay soo diray, laakiin wuxuu leeyahay macnaha waxa ay soo diray dadka maraykanka oo iigu codeeyey in aan nabadda ka shaqeeyo, codkana waxaa lay siiyey nabadda inaan ka shaqeeyo, dhaqaalaha maraykanka inaan soo celiyo, dadka soo galootiga inaan waddanka ka saaro iyo arrimo noocaasuu taxay uuna u sheegay ergadan oo fariin buu faray. Taasi waxaa lagu tilmaamay inay markaasi waddan kurkur xoog leh ay ku noqotay, laakiin madaxweynaha waddankaasi Ukraine Mr Zelensky ayaa ku cataabay ku calaacalay markaana garka ku qabtay in Trump uu ka sameeyo waxyaalaha qaarkood jixinjix oo wuxuu yidhi haddii aan sidan nabad ku qaadano oo haddeerto wuxuu yidhi haddaan sidan nabad ku qaadano oo haddeerto sidan ay wax ku yihiin aanu Putin isugu dhiibno, wuxuu ka digay inaysan noqon doonin wax ka yar in ay qiimo aad u sarreeya waddankiisa ugu baxdo. Waxyaalaha ugu waaweyn ee siyaasadda maraykanka isbedeli doonta ama isbedelka taban iyo kadib uu ku dhici doono waxaa ka mid ah qadiyadda loo yaqaano dadka madaxweynaha dalka maraykanka uu doonayo inuu qaado. Waxaan soo ururi doonaa warbixinihii ugu dambeeyey ee laga diyaariyey warbaahinta dalka maraykanku ay ka diyaarisay. Warbaahinta dalka maraykanku marka ay dadka soo galootiga ka hadlayso laba afkaarood oo kala duwan ayay ka yimaadaan. Afkaar waa afkaarta xisbiga dimuqraadiga iyo warbaahinta loo yaqaano liberalka ama liberal waxa loo yaqaano mainstreamka. Inta badan warbaahinta waaweyn ee dalka maraykanka iyaga gacanta ku haya. Warbaahinna waa warbaahinta conservative-ka la yiraahdo dhinaca midigta u janjeedha. Dabcanna waa warbaahinta loo arko in ay tahay tan ka dhanka ah dadka soo galootiga. Taa waxaa sii dheer caadifo aad iyo aad u xoogan oo sida inaguba ay caadifadu ay u socoto ee baraha bulshada aad uga aragtaan TikTok waxyaalaha xunxun ee laga sameynayo iyo dhaqan xumadan kusoo badanaysa iyo waxyaalaha dadku ay qaarkood suupinayaan si lamid ah iyo dadkan maraykanku ay arrintan uga hadlaan. Laakiinse maraykanku waxay kaga duwan yihiin dad yoogan kale inaga gaar ahaan Soomaalida waxay kaga duwan yihiin dadka Ameerikaanka ahi ayaga caadifadooda iyo xumaantoodu dhexdooda kuma wajahna intooda badan waxay ku wajahan tahay dadka soo galootiga oo ay leeyihiin waddankeenu ka ceshanana sidaa daraaddeedna qaybtiisa ka imaanaysa. Wararka ugu dambeeya marka la qorayo qolyaha dowladda taageersan cusub ee soo socota waxay leeyihiin dowladdu waxay ka faa'iideysan kartaa lacagta dhaqaalaha. Horta way sheegeen waxay yidhahdeen hay-adaha kala duwan waxaa la isweydiiyey halkee looga keenayaa dad la yidhi waa 10 milyan oo sharci darro ah oo dalkan ka saaraya si loo saaray waa in loo helaa soo maaha lacag budget ah oo lagu daro dowladda. sidaa daraaddeed way adagta budgetka dowladda in la meel mariyo hal dheeri laguma qaato tiro cayiman oo la yaqaano oo aqalka koongareeska iyo aqalka sanadka labadaba ka timaada. Weliba koongareeska ayaa budgetka sameeya, aqalka hoose hoosena aqalka jamhuuriga wuxuu ku hogaaminaya dhowr qof ayuu ku ma gaarsiisna meelay aqlabiyad weyn ka yihiin. Waa aqlabiyad waa hal dheeri marka si guud looga hadlay, laakiin aqlabiyad meel mar ah oo gaarsiin karta in ay wax ansaxsadaan ma haystaan. sidaa daraaddeed waxaa la sheegay inay arrintaasi caqabad aad u weyn ay noqon doonto, ayna adkaa doonto lacag loo meel mariyo taas. Inkastoo ay jiri doonto lacago loogu talagalay xuduudaha iyo sugitaanka in lagu dhex darsado, hadhowtan ay jiri karaan barnaamijyo kale oo xisbiga dimuqraadiga isaguna uu dhex marsado oo waxaa jira dalaal ay u doodaan oo yiraahdaan lacagaha ayaan laga jarin. Waxyaalaha noocaas waa imaan karaan. Maraykankuna inta badan wax loo yaqaano waxay sameeyaan give and take politics wax leedahay ku shaqeeyaan ama wax loo yaqaano exchange political spectrum oo ah in wax la kala bedesho. Tusaale ahaan xisbigani waxyaalaha ayuu doonayaa inay dowladda fulinta haysata ee awoodda haysata wax u gudbiso, kuwan cod buu ka rabaa waxbaa la kala gedistaa. Adduunka mucaaradadu mararka qaarkood waa practical oo sida maaragtay dadyoga qaarkood ugu fikiraan maaha, laakiinse waxaa la leeyahay way adkaanaysaa in ay yeelaan lacag cayiman in loo gooyo oo dadkaasi lagu gaagooda. Laakiin waa maxay marka warbaahinta dhinaca midigtu waxay leedahay midigtu waxay leedahay looma baahnaba waxay leeyihiin lacagaha caadiga ah ee hay-adaha kale ee dalka maraykanku ay leeyihiin sida lacagtan ugu badan ee dalka maraykanku ay bixiyaan waa lacagtan loo yaqaano indaada waa waaxdan gaashaandhigga oo ku dhowaad 1 trilyan oo lacaga ayay leedahay 900 oo bilyan oo dollar ayaa sanadka hore loo ansixiyay. Sanadkan way kasii badanaysaa waa waaxda gaashaandhigga waxay ku leeyihiin lacagaha gog ah ayaa ka harayo bilyan dollar
ku dhawaad 200 bilyan oo dollar ka haraya ama 100 bilyan baa ka haraya ama 80 bilyan baa ka haraya lacagahaas aba ku filan bay ku leeyihiin dadkan inaan ku musaafirino laakiin se lacagaha laftigooda shuruucayn bay u baahan yihiin waxaase la sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka magacaaban uu u riyaaqay oo uu yidhi aniga wixii igu xidhnaada hadhowtu waan saxiixaya waan ogolaanaya in lacagtaas loo isticmaali karo dadka in lagu musaafiriyo narrative noocaas oo kale ah ayay gudbinayaan warbaahinta dhinaca liberalka conservativeka dhinaca midigta u janjeedha halka warbaahinta dhinaca bidixda u janjeedha ay contra narrative waxa loo yaqaano ereygaa kasoo horjeeda fikir sheekada kasoo horjeeda ay abuureen oo ay sheegeen in ay noqon doonto arrintan mid ku dhammaata maxkamadaha dalka maraykanku waxyaalaha uu kaga horumarsan yahay dunida inteeda kale oo dhan wuxuu leeyahay maxkamado aad u awood badan oo haddana ka madax bannaan dowladda maxkamadaha waa 3 heer oo 2 heer oo federaal ah iyo heer maamul goboleed inta badanna waxyaalaha maamul goboleedka ka dhacaya waxaa go-aan ka gaadha maxkamadaha oo garsoorayaashooda lasoo doorto halka kuwa degmooyinka heer sare federaalkana madaxweynuhu magacaabo laakiin soo xilka ka qaadi karin taasina uu madaxweynuhu wax saameyn uusan ku yeelan doonin ruuxan la magacaabay isaga iyo aqoontiisa iyo dadnimadiisa iyo kartidiisa iyo meesha uu u socdo siyaasadda mustaqbalkiisa ayuu ka fekeraa dhexdhexaadnimadiisa iyo inuu maxkamad dastuurka dalka maraykanka inuu ilaaliyo by the way laakiin maxkamadda supreme courtka way ka duwan tahay saas ayadu inta badan kuma shaqayso dhexdhexaadnimo lama odhan karo dhexdhexaadnimo ku shaqeysaa maxkamadda supreme courtka waa maxkamad siyaasadeed waayo qofka supreme courtka loo soo magacaabo waxaa marka u horeysaba laga soo ansixiyaa golaha aqalka sanadka ayaa laga soo ansixiya waxaa laga yaabaa qofkaasi isagoo xisbigiisa loogu aarayo in dhibaato badan loo soo geysto sida loo ansixinayo rafaad badan uu soo maro sidaa daraaddeed mar walba uu ku khasbanaanaya in qoladii soo rafaadisay uu qaniino siyaasadahoodana uu ka hor yimaado halkaasi marka bay ka imaanaysa marka maxkamadda supreme courtka ayaa iyaduna laleeyahay way soo farageli kartaa maxkamadaha hoose dhibaatooyin aad u badan baa dhici kara oo dhinaca muranada dadka qaarkood waxay leeyihiin dad badan waxay ku badbaadi doonaan inta lasjiidanayo sanadka hore madaxweynaha wuxuu doonayay markuu jagada soo ofariso dadka yidhaahdo wadanka waa ka saaray waa ka bixinaa laakiinse dadkii intee in leg buu bixi karaa intee in leg baa la heli karaa intee in leg la qaban karaa sanadkaasi qararac badan oo dadka inta la heli karaa iyo inta la sibabsii kara waa la sibabsina sanadka labaad qarar waxaa bilaaban doonta loolan dhinaca maxkamadaha hay-ado kale oo waxaa jira markaasi dhinaca loo yaqaano civil rights movements civil rights organizations ama dad u dooda xuquuqda dadka rayidka isna dee xuquuqda dadka rayidka maraykanka mahaya waa xuquuqda dadka rayidka maraykanka ku dhaqan kuwaasna waxay wacad ku mareen inay ururi doonaan lacago ay kula dagaalamaan Trump iyo siyaasaddiisa xisbiga markaasi dimuqraadiga warbaahinta taageerta waxa ay leeyihiin dadkan waa in aan la isku wada qaadin waxay u kala saareen dadka dhowr category waxay yiraahdeen waxaa jira dad maalintii Mareykan soo galeen ba shaqo bilaabay shaqaysta cashuurta bixiya wax dambiye aan gelinin dadaalaya dalka Mareykanka wax soo gelinaya yacni toosnaaday sharciga si fiican u raadsanaya dad waxaa jira baleeyin kale oo ubad leh oo caruur meesha ku dhalay oo dumar ah oo rag ah abayaal ah oo runtii qoysas leh caruurtoodiina waa muwaadiniin waayo sharciga Mareykanka wuxuu qorayaa ilmaha Mareykanka ciidiisa ku dhasha haddii haweeney sagaalkeedii bilood sadkeedii go'ay ay Mareykanka soo gasho markay xuduudda Mareykanka saa uga soo talowdo Texas ay ciidda Mareykanka dhinaca kale ee gidaarka istaagto ay ilmihii soo tuurto ilmihii Ilaahay ka keeno automatically ilmahaas waa Mareykan dastuurka Mareykanka saa ku qoraya saa daraaddeed waxay ku leeyihiin ilmahan dowladda Mareykanku platformskeeda dhinaca waxa loo yaqaano child serviceka sida Europe oo kale ma oo uma diyaarsana ma jiraan Europe waxa iska jira kumanaan kun oo qof oo diyaar sooga inay ilmo karsadaan dowladdu ay mar hore diyaarisay waana nidaam ay u diyaariyeen lianna dowladda ayaa lacagta gacanta ku haysa laakiinse Mareykanka dadka ayaa lacagta gacanta ku haya qof markaa shaqaysta oo lacag haysta oo ladan oo business rangareeya oo meel professor ka ah oo meel ama shaqo heer sare ka shaqeeya ama meel maamula ama gaari wada ama lacag sameynaya uma baahna ilmuhu uusan dhalin inuu ku mashquulo noloshiisa kala ka tira badan halkaas ka imaanaysa marka noloshiisa kale qofkan ku mashquulsan yahay haweenadeeni maxay tahay sheegeen markay ritaayartana lacag badan bay qaadanaysaa ama ninku markuu ritaayar hadda lacag badan buu qaadanaya inuu ilmo uusan dhalin iyo hadda iyo kursimo iyo filinkaasi dadka bila camalka Europe jooga ayay leeyihiin dowladdu ama aysan ku filayn income-ka soo gala ayaa u baahan ciyaalo ay korsadaan oo dad laga soo boobay sidaa daraaddeed Mareykanku platform noocaas ma laha halka markaa dhibaato weyn baa ka dhalanaysa marka Trump waxay ku leeyihiin waa inuu diyaariyo hadduu doonayo dadkan haylaha qaar ka mid ah dadkaas bulshooyinkooda ay ka soo jeedaan way doodi karaan waxay dhihi karaan no annaga ilmaha iyaga haddii na lagaba reebayo ilmaha iyaga looma dhiibi karo waana sharci Mareykanka ilmaha xataa haddii laga qaadayo aabaha ama hooyada sharci darrada ah waa in consent waa in laga qaadaa waa in laga saxiixaa warqad in ilmaha qofka lagu wareejinayo marka waxay dhihi kartaa fine soo ilmihii ka qaadi misan ha anigana waad celinaysaa bulshadayda qof muslina oo bulshadayda ay raadiya ama qof dhigi karaa Asian baan qof Asia ka yimid ama waxaan ka yimid wadamadan kale saas dhihi karaan arrimaha marka adag ee haystay ka bisay marka
waa halka Soomaalidu tiraahdo hal siiyo sii hadalla u dhaxeeya Trump arrintaasi way ku adag tahay markii ugu horeysay ayaa madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay arrin la yaab leh oo runtii uu sheegay in ay noqon doonto tallaabadii lagu tilmaamay wakaaladda wararka TASS ayaa soo dhigtay warkaasi daqiiqada ka hor waxaana sheegtay in shirkadda loo yaqaano Gazprom iyo bankiga loo yaqaano the Gazprom Bank labadaba uu madaxweynuhu u ogolaaday arrin ay yar tahay in dadka qaarkood wadamada qaarkood yeelaan arrintani waxay u eg tahay in madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin uu doonayo in dalkiisu uusan silcin saxariirin sidoo kalena uusan arag dhibaatooyin dhinaca markaasi waxa uu sheegay in shirkadahaasi gebi ahaanba loo ogolaa doono haatan iyo wixii ka dambeeya in lacagaha ay ku bixiyaan ayaa la yidhi amaah saddexaad gacan saddexaad iyadoo bangiyadaas la isticmaalayo sidoo kalena ay iibiyaan gacan saddexaad tusaale ahaan haddii aad shirkadaadu ay caddee karto in aad tahay shirkad gaas baa tahay sidaa daraaddeed waxaad soo heshay suuq aad soo iibiso credit ahaan baa laguu siinaya wuxuuna u ogolaaday in shirkadaha shisheeye ee gacanta saddexaada loo ogolaado marka bankigan ayaad la soo xidhiidhaysaa waa arrin la yaab leh aada looma ogolaado bankiga loo yaqaano markaasi Gazprom Bank ama shirkadda Gazprom labada kaa doontid ayaad ka furanaysaa koonto ama aad cilaaqaad la samaysanaysaa kadib waxaad dhahaysaa gaaska aniga waa soo cadeynaya lacagta waa soo iibinaya markaan soo iibiyo kadibna lacagtiinni ayaan idin dhowto idiin soo diraya gadaal baa idinka soo diraya maxaa la yidhahdaa waxaa shayga qofka Soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa waa la soo cadeynaya soo cadeynaya macnaha waxay lacag baan ka soo dhigaya ilaa hadda lacag ma wuxuuna sheegay in qaab kredida dadka foreign investorska ama maalgashiyaasha shisheeye loogu ogolaado waxaana uu sheegay in gebi ahaanba ay noqon doonto arrintani mid aad iyo aad u weyn waxaana tani ahayd markii hore wax loo yaqaanay K special accounts accountka K specialka la yiraahdo looma furi jirin dadka shisheeye haatanse way u ogolaaday dekreeto uu soo saaray wuxuu ku sheegay in si dhaqaalaha waddanka loo daadajiyo isla markaana waddanku uu helo ku dhiirasho ay kusoo dhiiradaan dadka shisheeyaha ah ee dabad wareega ka ah loolana tacaalo digdigta iyo wuxuu yidhi cunaqabataynta tirabeelka ee wadamada reer galbeedku ay soobinayaan in la sameeyo hanaan wax ku oola oo laisku hallee karo oo la aamini karo oo dadka lagu soo dhaweysanayo tani waxaa lagu tilmaamay mid haddaba loolan aada xoogan u leh madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin dhanka kale wuxuu ogolaaday in ciidamadiisu ay sii wadaan duqeyn aada xoogan oo loo geysanayo agagaarka afaafka dagaalka iyadoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen in habka ciidamada waddankaasi Russia ay u adeegsanayaan kantaalaha uguna dagaalamayaan gaar ahaan nooca ridada dheer ICBM-ku ay wacdara keeneen waxaana la aaminsan yahay in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ku dhowaad 1,500 oo askari oo ciidamada waddankaasi Ukraine ay dhinteen inkastoo Ukraine aysan ciidankeeda dhimashadiisa aysan alaaba si toos ah uga hadlin laakiin way qirataa si guud in khasaare dhinaca dagaalka uu dhalashay waxaana ku tilmaantaa inay taasi tahay natiijada dagaal halgan ah oo looga soo horjeedo aggressionka dalka Russia iyo madaxweyne Vladimir Putin ay bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ay kusoo dumeen dalkooda balse dowladda Russia waxa ay sheegaysaa in hanaanka kor u qaadista duqeynta iyo burburinta goobaha qaarkood ee cayiman ee lagu garaacay ay yiraahdeen hubka iyo rasaasta gaar ahaan kuwa khaaska ah ee gantaalaha ridada dhexe ee ICBMs ay natiijo aad u xoogan keeneen dowladda Russia waxay sidoo kale ay go'aan ku gaadhay inay bartilmaameedsato inta badan ay burburiso hub aad u badan oo ay ka mid ka yihiin ay yiraahdeen hubka baabuurta gaashaaman ee dalalka reer galbeedka gaar ahaan laba dal oo ay si gaar ah u xulatay hubkooda oo kala ah Jarmalka baabuurta gaashaaman iyo dalka Mareykanka oo ay baabuurta gaashaaman iyo isku darka gantaalaha Atomax ay intaba si bartilmaameed ay u duqeynayso gobolka loo yaqaano ama gobolka weyn ee la yiraahdo markaasi Kursk oo dalkaas Russia ka tirsan ayaa ilaa hadda ciidamada ku sugan ee go'doon ku sugan yihiin waddankaasi Ukraine waxa la aaminsan yahay 40 iyo dhowr kun oo askari ay halkaasi ku lumisay sanadihii ugu dambeeyay dhanka kalena dowladda Russia ayaa sheegtay in uu 9 jeer uu sagaal jibaarmay cilaaqaadka dhinaca ganacsiga iyo wadaynta u dhaxaysa dowladaha waqooyiga Kuuriya iyo Russia oo ay dagaalka ku wada jiraan sida uu sheegayo mid kamid ah dadka heshiiskaasi u qaabilsan Yuri Ushakov wuxuu ku tilmaamay cilaaqaadka Pyongyang iyo Moscow dhaxmaray inuu yahay kii ugu ballaadhnaa tan iyo intii labada dal ay dib ugu noqdeen heshiisyadaasi waxaana uu sheegay in ay ahaanba 9 jeer ee laba jibaarantay oo ay gaadhay lacag gaaraysa ilaa 34 milyan oo dollarka Mareykanka taasoo ku tilmaameen inay tahay milestone ama natiijo wax ku oola waxaan sii wadi doonaa hanaanka ballaarinta ee cilaaqaadka labada dhinac ayadoo sidoo kalena aan ka faa'iideysan doonaa arrintaasi ayaa leeyahay
si kastaba ha noqotee arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kalena ay u muuqato baa layidhi in ay waanihii ugu dambeeyey dowladda dalkaasi Russia ay ka shaqeynaysay dhowr qorshe oo waaweyn oo ay doonayso inay mar kale ku xaqiijiso gacan sarreynta adduunka khatarta weyn ee kasoo jejela iyo dagaalada aadka u baahan ayaa dowladda Russia waxay weli ku eedeynaysaa inay ka damayaan dalalka reer galbeedka waxayna tuhunsan tahay in dalalka reer galbeedka ujeedka kaliya ay ka leeyihiin dagaalka waddankaasi Ukraine ay tahay inay dalka Ruushka ay ku dheereeyaan dagaalka iyo marxaladda kagana hor keenaan isla markaana ay hadhowta ay dareento fatigue ama daal dhinaca dagaalka ah ugu dambeynna ciidamada dalka Russia ay isdhiibaan ama se ay dagaalka iyagoo hantaarulaay ka baxaan balse dowladda Russia afhayeenkeeda wasaaradda arrimaha dibadda Maria Zakharova ayaa dhinaca kale ka update garaysay bulshada wadankeeda in dagaalku uu yahay mid iska sii socon doona dowladda Ruushkuna xataa aysan muddo dheer wax dhibaato ah ku qabin ciddii laba kululanasaana la arki doono markay noqoto dhinaca dagaalka isku soo wada duuduubo dagaalada aadka u baahan ee soconaya ee dalkaasi Russia la doonayo in lagu fashiliyo waa mid aan gabi ahaanba waxba aysan ka soo naasacday dhanka kalena wadamada Japan iyo dalka Shiinaha ayaa u muuqda in xaaladoodu sii darsatay Japan ayaa maalinimadii shalay waxay sheegtay inay lacag gaaraysa malaayiin dollar ku dhawaad 1.96 bilyan oo lacagta yaanka wadankeedaasi ay u daabashay dalka Philippines una fasaxday inay ku samaystaan hanaanka dhinaca difaaca iyo kor u qaadista nidaamka awoodda badda gaar ahaan qadiyaadka ka taagan badda loo yaqaano South China Sea South China Sea ayaa ciidamada wadankaasi Philippines waxaa ka haysta fadeexad aad iyo aad u xoogan kadib markii bahdilaad toos ay kula kaceen cutubyo ciidamada ilaalada xeebaha ee wadanka Shiinuhu berihii ugu dambeeyay dhowr jeerna ay ka burburiyeen saanadii agabkii matooradii iyo sidoo kale mashiinadii ay ku shaqaysanayeen ay ku saarnaayeen markaas doonyahooda iyo maraakiibtoodu ayna halkaas ka direen dowladda Japan iyo dalkan Shiinaha oo cilaaqaad soo jireen ah oo aad u fool xun leh taariikhda u dhaxaysana ay yihiin kuwa aad u liita ayaa la sheegay dalka Japan in arrintaas yeelan tan waxay dhinac socotaa iyadoo dowladda Mareykankuna ay 2 sano ka hor 4 heshiis oo military oo kala dardaran ay la gashay dalka Philippines heshiisyadaasi ay ugu yeedhay dowladda Mareykanku inay yihiin kuwa daneed iyo difaac iyo taageerista madax bannaanida gobonimada dhuleed iyo tanbadeed ayaa sii socda dowladda Shiinaha ayaa ka digtay inay arrimahan oo dhan isku dardar ahaan ay dhali doonaan hal shay taasoo ah in ugu dambeynta ay dowladda dalka Shiinaha ay cilcun ahaan kula dhacdo carada dowladda Shiinuhu waxay kaloo samaysatay tobanaan ayaa la yiri jasiirado magacyaale oo markaasi gacan ku samaysa oo ay markaasi ay ku gogashay dhagaxaan ay ka buuxisay oo badda ku aastay si ciidankeedu agagaasi ugu noolaadaan waxna ugu karsadaan halkaana waxay qoomaartay tobanaan ka mid ah maraakiibteeda dagaalka diyaarado Tronisa waxaana dhowr jeer ay ku samaysay pooling wax loo yaqaano ama ay gardaraysi iyo riixitaan aad fool xun oo yacni markaasi handadaad ah iyo waliba leelin ay gelisay ciidamada wadankaasi Philippines haatan waxay sheegaysaa in ay dulqaadka ka sii idlaaday arrintoodana aad iyo aad ay u xun tahay ayna noqon karto ay yiraahdeen mid aan haba yaraatee aan waxba ka soo naasacadaanin wararka dalka Suuriya horta ku saabsan waa tii magaalada Hama ilaa iyo xalay ilaa iyo maalinimadii Jimcaha ahayd waa tii lagu sida aad ku xulis ugu dilay khamiistii ayaa ciidamada dowladdu ay qusteen kadib markii dagaal galabta goor gaaban soo gaadhay siduu salaadii subax u bilowday lagu kala hadaafay ururka taxriir loo yaqaan Xayaat Taxriir ayaa la aaminsan yahay in ay wataan agab ciidan oo aad u sarreeya intaynaan eegin eedeymaha ku saabsan meesha ay hubka iyo sanada ay ka heleen ilaa deerto quwadaha dagaalkan ku lugta leh ee iska cadi waa wadanka Ruushka dowladda Iran iyo Suuriya isku dhinaca laakiinse waxaa muuqata in laga tuturoonaaday oo dagaalkii ugu dambeeyay magaalada Hama lagu jabiyay waxayna ka digayaan ururkan haatan iyo wixii ka dambeeya in ay u jeeysan doonaan magaalada Dimashq ee xarunta wadankaasi dagaaladan aadka u baahan dowladda Russia waxay ku tilmaantay in 3 maalmood ee ugu dambeeyay oo dhan ay filaysay inay dhacaan xabajoojino iyo wada hadallo dhinacyada dhexmara laakiinse wakaalada wararka TASS ayaa ku tibaaxday in dowladda dalkaasi Russia qadarta ay ogashahay in la xoojiyo weeraro aad iyo aad u culus sida la aaminsan yahay waxaana ay ku tilmaantay dowladda Russia inay weeraradaasi ay qaadi doonto kadib markii ogaatay ay yiraahdeen in duulanadii ugu dambeeyay iyo hirkan ciidamada ay soo qaadeen deegaanka Hama ay ku qabsadeen ugu dambeysay ay ka damayaan gacansiin heer sare ah oo ay sheegeen inay ka imaanayso wadamada qaarkood baabuurta waxay sheegeen in gaashaanbuurta NATO ay ku lug leedahay arrintan dalalka Turkiga iyo Mareykanka ayay ku tilmaameen inay labaduba ku lug leedahay sida ay sheegayso wakaalada wararka TASS oo soo xiganaysay mid ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ayay ku tilmaameen in ay dowladda Russia mar walba ay doonaysay in aan la taageerin ururada Islaamiga ah ee argagixisada ay ka mid tahay hay'adda ISI ama kooxda ISI iyo waxay yiraahdeen tan kale ee qaacida ka tirsan ee taxriir inkasta oo ay ururadana iyagu ay sheegayeen inaysan shaqo toona aysan ku lahayn ururo argaxiso balse ay yihiin huwan
dabiici ah oo dadka deegaanka u dhashay isla markaana ah asali ah oo ay ka wadaan in ay yihiin carabtii wadanka iska lahayd sidaa daraaddeedna ay doonayaan inay ka buriyaan wadamo iskaashanaya wakaalada wararka tass waxay ku tartay intaasi in dowladda ruushku hadeerto ay u jeedisay labadaasi dal ee maraykanka iyo dalka turkigu inay labaduba ay wadaan qabanqaabo aada u xoogan oo aada u liidato wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaase qadiyadan kala xaajooday shir ka dhacay markaasi magaalada alqaahira madaxa guud ee hay-adda loo yaqaano carab league ee axmed abu qeyd iyo hakan fidan ayaa ka wada xaajooday xaaladda sii socoshadeeda dagaalka dowladda dalka turkiga ayaa doonaysa inay taageero laxaadle ay u hesho marka ay noqoto in wadanka suuriya haddii la doonayo inuu noqdo wadan dagaalka ka caagan wadan kasta inuu faragelinta ka daayo ruushka iyo dowladda maraykanka iyo turkigu midug walba dano gaara ayuu halkaas ka leeyahy aan kala dhigo mid iyo midna aan kala qaado ruushka aan ku horeysiiyo dowladda ruushia waxay taageersan tahay islamarkaana ay gacan siisaa bashaar al asad danteeda ayayna ka aragtaa kadib markii saldhigga xamiimi ay siisay ku teedsan markaasi badda mediterraneanka ruushku laba ujeedo ayuu halkaasi ka leeyahay siduu warka sheegayo marka koobaad ruushku ujeedada koobaad uu halkaasi ka leeyahay waxaa weye istiraatiijiyadda baddan mediterraneanka oo uu doonayo inuu ku dhowaado si uga cururuqeeyo danaha cid kasta oo isaga ka dhalan si gaar ahaan inuu bariga dhexe meel uu ka qooraansada ay tahay waana dalka keliya ee bariga dhexe ku yaala ee dowladda dalkaasi ruushia ay ku leedahay saldhig rasmiya oo loo ogyahay laguna ogyahay sidaa daraaddeedna maadaama iscishiimaysi iyo dhinaca dagaalada oo soo noqnoqon karaya iyo in xataa hadhowta badaha laisku dila wuxuu doonaya maraakiibtiisa ka gudubta badda atlantic ka gudubta badda aan dhaho black sea ee ku xidhanta badda loo yaqaano mediterranean kadibna atlantic ay usii tallaabi karayso inuu halkaa ka qoonaansado isshaqaynta caalamka iyo haddii laysu dareero oo ay noqoto meeluu ciidankiisa uga hiiliyo iyo sidoo kale meelo uu ka dhibaatee karo fadhi weynta ciidanka maraykanka ee xudayd ee duleedka magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar iyo sidoo kale maraykanka oo gobolka oo dhan markuu doono mushaaxa maraakiibtiisa inuu ugu yaraan uu yidhaahdo waa lagula jooga danta labaadna waxaa weeye maadaama dalka suuriya madaxweynihiisa gebi ahaanba uu yahay madaxweyne siyaasadda dalka ruushia taageersan sidaa daraaddeedna halkaasi wuxuu ka doonayaa in uu caddeeyo danaha uu ka leeyahay ee dalkaasi iyo meelaha kale ee muhiimka dadka qaarkood ee sheega wararka la mu'aamaraday waxaa loo yaqaano wararkan yani conspiracy theories waxay dhahaan wadankan gaaskii aadka u badnaaya dhowaan laga helay barbilowga dagaalku intuusan bilaaban 2010 ayaa dhaliyay in dalkaasi ruushku uu carqaladeeyo laakiinse taas war runtii filan maaha turkigu haddaba waa wadan kale oo isaguna meesha dana kale danaha uu turkigu ka leeyahay waxaa weeye turkiga waxay ishayaan koox loo yaqaano PKK PKK-du waxay ku doodaysaa in ay rabto inay la go'do gobolada dhinaca waqooyi ee dalkaasi turkiga gaar ahaan kuwa xuduudda Sinjar iyo dhinaca Ciraaq xiga waxayna raadinayeen muddo sanadkii afartanaad kor u dhaaftay inay wadan madax bannaan ay noqdaan kurdiyiintu waxaa madax maray inay helaan wadan loo yaqaano Kurdistan isla markaana waxay doonayaan in ay bulshooyinkooda kala go'go'ay ee ku kala darsamay ugu yaraan 4-5 dal oo wadamada Iiraan Turkiga Ciraaq iyo Suuriya ay ugu caansan yihiin inay isku soo ititibiyaan isla markaana ay wadan uun helaan meesha ugu badan ee xoogga ay saareen ama ay aad u dhibaatada iyo dagaalka daba dheeraaday ka geysteen waa wadanka loo yaqaano turkiguna cadaadis aad u xooggan ayuu saaray kooxda wuxuuna ku guuleystay inuu u ololeeyo in lagu daro PKK ururada argagixiso laakiinse practical markay noqoto arrintaasi ma shaqaynin waxaana markii ay dowladda dalkaasi Syria ay dagaalo ka dhaceen qaybtii shidaalka qaniga ku hayday wadanka ee dhinaca waqooyi bari ee wadanka Suuriya waxaa qabsaday koox loo yaqaan YPG People's Protection Units kooxdani waa koox ayagu mabaadi ahaan iyo weliba qoomiyad ahaan kurdiyiin ah maraykanku kooxdan wuxuu u isticmaalay dhinaca la dagaalankii ISI maraykanka ciidankiisa ayayna cilaaqad rasmi ah samaysteen waxayna ka barbar dagaalameen ciidanka maraykanka ways aamineen ilaa xad wayna isdhex galeen ugu dambeyn taasina waxay dhalisay in kooxda maraykanka uu si toos ah hub iyo saanad iyo dhaqaale u siiyo sidoo kalena uu ku korjoogteeyo wixii ayaga ka weyn ee soo weerara kolkaana maraykanka waxa uu helay cabasho ka timid dalka turkigu wuxuu yidhi YPG hubka iyo saanada aad siisaan waxay ku qoodiyaan walaalahooda isku beesha iyo qabiilka yihiin kurdiyiinta dhinacan jirta dabadeedna annagaa naloo isticmaala kolkaana dowladda dalka turkigu waxay go'aansatay inay samayso dhowr howlgal uu ka mid yahay howlgalkii laanta loo yaqaano geedka salisaytuunka iyo sidoo kale kii kale loo yaqaano dooxada Frat iyo webiga Frat kaasoo ugu dambeyntii keenay in dowladda dalkaasi turkigu ay boqolaal ciidamadeeda ay u soo dirto gudaha dhinaca waqooyi ee wadanka
wadankaasi gaar ahaan gobolka cafrin iyo dhowr degmo oo kale oo ciidanka turkiga ay qabsadeen. Labada dal qir iyo qir ayay isku noqdeen, maraykanka iyo weliba markay noqoto dalka turkigu maryo dhiigle ayayna kala fura gaadheen. Xaaladooduna waxay gaadhay mid aad u liidata. Dantaasina ma waafaqsana sida aragti ahaan ay qabto dowladda ruushka. Tusaale ahaan, ruushku turkiga taa way ku diidan yihiin oo waxay leeyihiin annaga haddaan nahnay Russia, dowladdii rasmiga ahayd ee Suuriya ayaana casuuntay oo ogolaansho na siisay. Idinku laakiinse waxaa tihiin dad xadgudub kusoo sameeyey midnimadii iyo wadajirkii dalka, waxaanad usoo dirteen ciidamo sharci darro ah, isla sida Maraykanku uu sameeyey. Ruushku markaa labadan dal markuu ka hadlayo qadiyadda Suuriya, labadaba wuu diiday. Ogoobay waxyaalo kale oo ay Turkiga iyo iskaga dhow yihiin iyo ruushku heshiisna ku yihiin iyo faylal kale way jiraan. Dabeedna ruushku wuxuu dabcay inuu culayska ka kala yareeyo Bashaar al-Assad kadib markii wadamo dhowr oo Carabeed usoo rucleeyeen oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka Carabta oo labadoo dib u furay ilaa xad goobihii. Sidoo kalena gadaal baa loogu soo celiyey jaamacadda Carabta dalkaas labadii sano ee ugu dambeeyeen. Dowladda Suuriya albaabada jaamacadda Carabta waa u furnayd. Kii ugu dambeeyeen khudbadii uu ka jeediyey wuxuu toos ugu weeraray dalka Turkiga iyo dalka Maraykanka labadaba. Haddaba Maraykanku isaguna dan kale uu meesha ka wata. Dadka Maraykanka eedeeya waxay sheegeen inay dan dhaqaale iyo dantan kale waxa loo yaqaan hal abuurka argagixisada ee la sameeyey ee labadoo jiraan. Tusaale ahaan, dadka dhaqaalaha ka hadlaya waxay leeyihiin goobihii saliidda ee muhiimka ah ayuu Maraykanku haystaa, sidaa daraaddeedna wuxuu lacagtaasi uu ku fuliyaa howlgallo ka dhana iyagana maamula. Sidaa daraaddeed Maraykanku wuxuu boobayaa oo dhacayaa shidaalkii dalka Suuriya ayay yidhahdeen dadka eedeynaya. Laakiinse arrinta caadi waa ta siyaasad. Maraykanku wuxuu sheegayaa in Suuriya uu u galay una tegey la dagaalanka argagixisada. taas waxaa sii dheer dad kale oo iyaguna xaqiijinaya Maraykanku taa kaliya aysan u tegin uu u soo basaaso Israa'iil dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah Iiraaniyiinta ay ka soo gudbiyaan hubka saanada iyo weliba tiknoolajiyada ay gudaha u soo geliyaan dalka Lubnaan si Xisbullah ay ugu dagaalanto. Intaasina waxaan aaminsanahay inaad ku fahanteen wararka ugu dambeeya. Haddaba aan dhaho waxyaalaha la isku hayo waaweyn iyo wadankaasi siduu u noqday, laakiinse taa arrin ka weyn ayaa jirta oo aad ku daawateen barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Gaan gaandurooda daawashana qiimaha leh faafinta wararka waa xaggiina, keenista xogaha dhinaca diblomaasiyadda iyo qaada dhigista heerka sare iyo fahamka waxa ganada.